kulanti wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo anigoo Nasra ah oo idinla socodsiiya arrimaha tarbiyadda iyo barbaarinta wanaagsan ee carruurta, dhiirigelinta waalidiinta iyo qisooyinka iyo wararka ku saabsan arrimaha bulshada iyo carruurta. Isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay inagoo muddo ku kala maqnayn hawada. Markan iyo mawduuceena waxa uu noqon doonaa qasabka maalinlaha ah ee lagula dhaqmo carruurta. Waxa aynu gadaal ka sheegi doonaa waxyeelada uu ku keeno qasabka maalinlaha ah ee waalidiintu iyaga oo aan ugu talagelin amaba aan daadanayn ay kula dhaqmaan carruurtooda. Inta badan waxa aynu ognahay waalidku waxa uu carruurtooda siiyaa amarro kala duwan isagoo u arkaya in ay yihiin qaar dantooda ku jirto. Waxa uu u sheegaa arrimo kala duwan inay sameeyaan isagoo u arkaya in uu wax fiican samaynayo amaba ku talagalkiisu marnaba aanu ahayn inuu ilmihiisa waxyeelo. Hase ahaatee waxa la ogaaday qasabka maalinlaha ah in ay waxyeelo badani ka soo gaadho carruurta maskaxiyan iyo nafsiyan labadaba, taasoo ku keenta calaamado badan iyo waxyaabo badan oo ay marka ay xataa dad waaweyn yihiin kasoo kabsan waayaan. Haddaba waxaad isweydiinaysaa maxaa ka mid ah qasabka maalinlaha ah ee tolay aan carruurtayda kula dhaqmi karo ama aan kula dhaqmo? Haddaad doonayso inaad ogaato amaba aanad daadanayn, waxa aan kula wadaagayaa qodobo ka mid ah qasabka maalinlaha ah ee waalidiinta intooda badani ay ku dhaqmaan maalintii. Waxa ay ilmahooda ku qasbaan cunto aanu rabin isla markaana aan isaga dhadhan u lahayn, iyagoo u arkaya amaba ku fikiraya inaan ilmahooda gaajo qabanin oo uu wax cuno si uu u weynaado amaba aanu u noqonin mid baahi hayso. Taasise ma aha qaab fiican oo ilmaha waxtar u leh. Waxa uuna ku keeni karaa in uu ilmahaasi noqdo mid markasta cuna wax aanu garanahayn in dhadhankeedu inuu isaga cajabiyey iyo in kale. Calaamadahan oo kalena qofku waxa uu dareemaa isagiyo weyn haddii uu yahay mid yaraantiisii cuntada lagu khasbi jiray. Waxa uu kala garan waayaa cuntada cajabinaysa iyo ta aan cajabinahayn, waxaanu markasta u cunaa si aanay baahi u qabanin keliya. Waxa kale oo ka mid ah waxyaabaha ay waalidku ku qasbaan carruurtooda inuu ilmahaasi bixiyo raaligelin isagu dareensan ama og in aanu haba yaraatee wax khalada gelin. Waxa laga yaabaa inuu ilmo kaloo walaalkii ahi soo ooyo isagii oo aanan waxba ku samaynin, kadibna waalidku uu ku qasbo ilmahaasi ooyaya inuu raaligeliyo. Dareenkaasi ma noqdo mid yaraantiisa oo keliya qofkan ku koobnaada, hase ahaatee waxa uu noqdaa mid ku soo maaxda ilaa iyo noloshiisa oo dhan. Waxa aanu dareenkaasi ku abuuraa qofka in uu yahay mid mar walba dareemaya inuu isagu yahay qof dembi galay, xataa isagiioo laga khaldan yahay. Waxa uu halkaasi ku waayi karaa xaqiisa ama waxyaabo badan oo isaga uu xaq u lahaa. Waxa kaloo waayi karaa raaligelin isagu uu xaq u lahaa, maadaama isagu yahay mid mar walba dareemaya inuu yahay mid dembiile ah oo raaligelinta ku horeynaya ama bixinaya. Haddaba iska ilaali inaad carruurtaada mar walba ku khasabto inay bixiyaan raaligelin adigoon ogeyn khaladka inay iyagu lahaayeen iyo in kale. Waxa kale oo ka mid ah qasabka maalinlaha ah in carruurtu ay seexdaan ama ay tagaan goobta hurdada iyagoo haba yaraatee wax hurdo ahi aanay haynin. Taasina ay keenayso qasabka uu waalidku ku khasbayo in uu tago goobta sariirta isagoo markaa waalidku ka fikiraya inaanu ilmihiisu saamaleylin amaba dantiisa eeganaya oo raba inuu helo waqti deganaanshaha oo carruurtu kaga kala jiraan qolalkooda. Taasina waxa ay qofka ku keentaa ilaa iyo markuu weynaado in uu noqdo mid jiifsada isagiyo haba yaraatee aan wax hurdo ahi haynin, amaba isagiyo hurda hayso aan seexanin oon tegin goobta hurdada. In badan waxa aynu aragnaa dadka qaar oo odhanaya anigu waxaan ahay qof aan hore u gam'in amaba hurdadu way igu caansiirtaa haddii aan saxsanahay.
sababaha keenayaana ma aha wax imika kugu yimi, hase ahaatee waa wax qofka yaraantiisii kasoo raacay. waxyaabaha kale ee khasabka maalinlaha ah ka mid ah waxaa ka mid ah waalidku waxa ay jecel yihiin had iyo jeer inuu ilmuhu tijaabiyo waxyaabaha qaar oo iyagu ay u arkayaan in ay u fiican tahay, sida marmarka qaar inuu wax qabto ama wax qaado ama wax uu tijaabiyo markaa uu waalidku ku leeyahay samee waad samayn kartaa. waxay ka dhigan tahay inuu waalidku ku khasbayo ilmahaasi oon weli diyaar u ahayn inuu waxaa tijaabiyo. taasina waxay ku keenaysaa ilaa noloshiisa dambe inuu noqdo qof mar walba oo wax cusub uu tijaabinayo nafsiyan u dareema baqdin iyo cabsi. cabsidaasi oo ka imanaysa tii yaraantiisii isagoon wax diyaar u ahayn inuu qabto ama tijaabiyo lagu khasbayey, uu u qabanayay waalidka dartii. haddaba iska ilaali inaad ilmahaaga ku khasabto waxyaabaha qaarood adigu u arkayso inuu qaban karo laakiin isagu uu weli ka yara baqayo. haddii kale noloshiisa oo dhan waxa uu noqonayaa mid wax kastoo cusub uu tijaabinayo cabsi ku bilaaba ama baqdin. waxaa kaloo ka mid a qasabka maalinlaha ah ee waalidku ilmihiisa kula kaco in uu ku khasbo waalidku alaabta uu ilmaha yari haysto in uu la wadaago ama la sheergareeyo caruurta kale ee walaalihii ah ama faamilkiisa ka midi ah amaba markaasi goob la jooga, in uu waalidku ku yidhaahdo u dhiib ha kula ciyaaraane, isagii haba yaraatee aan ilmaha yari rabin inuu u dhiibo. tanoo kale waxa ay ku keentaa qofka marka uu weynaado in uu noqdo qof aan haba yaraatee mayada aqoonin oo marka uu wax haysto aan qofka kale u diidi karin, waayo khasab ma aha inuu qofku mar walba wuxuu haysto cid wax ka siiyo. hase ahaatee caruurta falalkan oo kale kusoo dhaceen markii ay yaraayeen ma yaqaanaan inay yidhaahdaan maya, sidaa darteed waxay ku khasban yihiin in iyaga oo niyad ahaan dareemaya in aanay waxan rabin haddana qofka u qabto wax ama wax siiya ama la sheergareeya. waxyaabaha kale ee maalinlaha ah ee lagu khasbo caruurta waxaa ka mid ah in waalidku uu ku yidhaahdo salaan qofkan isagoo haba yaraatee ilmuhu aan garanahayn qofkani kuu yahay. tusaale ahaan qof ayaa waddada kaaga soo horbaxay aad adiga waalid ahaan xilli hore istaqaaneen, ilmahaagiibaa kula socda ama caruurtaadii waxa aad khasab kaga dhigaysaa in uu qofkan salaamo adiga oo muujinaya qofka kale u muujinaya ama raba inaad tusto in aa ixtiraamteen ama caruurtaadu ay ixtiraameen. waxa kale oo ka mid ah khasabka maalinlaha ah ee waalidku caruurta kula kaco in ay u ogolaadaan ama ay caruurta ku khasbaan in la siiyo hab ama la taabto. waxyaabahaas oo kale waxa ay ku keenayaan ilmuhu in uu noqdo hadhow mid aan jidhkiisa difaaci karin, mid ogolaada waxyaabaha qaar ama taabashooyinka qaar oo haba yaraatee aanu rabin. waxaynu uga dan leenahay waalidow ogolow diidmada ilmahaaga, markastana ku feejignow ilmahani inuu yahay qof bila'aadana oo adigoo kala ah, kana ilaali khasabka si uu u noqdo hadhow mustaqbalka mid naftiisa difaaci kara, mid ay cabsi ka maran tahay iyo walwal laabtiisu. haddaad doonayso ilmo isku kalsoon ina aad koriso ka dheerow waxyaabaha khasabka maalinlaha ah ee waalidku kula kaco caruurtiisa. intan waxaan kusoo gabagabeynayaa mawduucan iyo muuqaalkan iyo markan. inta aynu isugu imanayno muuqaal iyo mawduuc kale waa anigoo Nasra ah oo idinkaga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.